heestii qabiilada ay dhawaan soo qaadeen fanaaniin uu ku jiro Ilka Case ayaa dagaal ka dhex dhalisay shakhsiyaad caan ah. Maxay tahay sababta heesta la isugu qabsaday? Yay tahay cidda dhalisan shakhsiyaadka caanka ah ee heestiye yihiin? Ilka Case heestan muxuu u soo qaaday? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan kaga hadli doonaa warbixintan ee daawada muuqaalka shargare oo la wadaag asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale page-kana follow garay mahadsanid. heestii qabiilada ay dhawaan soo qaadeen fanaaniin uu ku jiro Ilka Case ayaa dagaal ka dhex dhalisay shakhsiyaad caan ah. Inta aan shakhsiyaadka u gudagelin, heesta ayaa markeedii hore dagaal ka dhex dhalisay dhalinyaro qaab qabiil uga falceliyay kuwa oo dhalisan habka loo qaaday iyo ereyada la adeegsaday. Dadjooga ka falceliyay ayaa waxay ku dhaliileen heesta oo lagu soo qaatay qabiilo iyo deegaano kuwa kan laga tagay oo aan la soo hadal qaadinba, halka dadka qaar ee heesta ku dhaliileen in lagu amaano deegaano gaar ah iyo in qabiilo meel hoosaad loo muujiyay, taas oo ah mid ugu weyn ee la isku haysto. Waxaa baraha bulshada qabsaday falcelinta looga soo horjeedo heesta, taas oo dad badan ay si kala duwan uga falceliyeen, fasiraado kala duwan ay ka bixiyeen. Dadka qaar ayaa ku doodaya in heesta lagu muujiyay deegaano iyo qabiilo gaar ah, balse iyaga beelahooda laga tagay, taasna aysan qaadanayn oo ay ka dhiidhinayaan. Dadka dhalisan heestan ayaa durba bilaabay in barta YouTube-ka uu leeyahay Ilka Case lana soo saaray heesta ay ku muujiyaan diidmadooda, iyagoo saaray dislike si loo dareemo diidmadooda ama hawada looga saaro heesta. Iyadoo taas ay jirto ayaa heesta waxa ay dagaal ka dhex dhalisay shakhsiyaad caan ah oo kala ah xaaska Ilka Case Nimco Joker iyo fanaanada Farxiyo Kabayre, kuwa oo hawada isku mariyay qoraalo weerar iyo weerar celis ah. Ugu horeyn, fanaanada Farxiyo Kabayre oo iyadu ka carootay heesta lagu muujiyay deegaanada iyo qabiilada gaarka ah kuwa kale laga tagay ayaa waxay barteeda Facebook ku soo qortay qoraal ay ka muuqato caro xoogan, taas oo ay ku dalbatay in dhalinyarada ku heebta ah oo ay uga jeedo jufo-hoosaadkeeda ay joojiyaan ka hadlidda heestan oo aysan saameyn u yeelin. Waxay tilmaamtay in marnaba aysan mudneen in laga hadlo maadaama ay tibaaxday in ay soo qaadeen dad caanimo raadis ah. Waxaa jira waxaan mudneen in laga hadlo walaalahii inta baraha bulshada ku jirta ee aniga ugu heebta ah, fadlan naga daaya dadka aan saameynta lahayn ee saameyn inay yeeshaan u soo qaaday ama raadinaya inaad ka hadashaan, ayay tiri Farxiyo Kabayre. Intaas kadib ayaa xaaska Ilka Case Nimco Joker oo iyadu ka carootay jawaabta Kabayre waxay orgi ku tilmaamtay fanaanada. Waxay sheegtay in 15 sano ay ka xishoonaysay inay u jawaabto, balse hadda aysan ka xishoon doonin oo ay u jawaabi doonto gabadha ay habareertu tahay. Cawaale Aadan runta 7 sano ka hor ku xishoo waayabaan anigoo habareernimo 15 sano ka xishoonayay orgiyoy, ayay ku jawaabtay Nimco Joker. Farxiyo Kabayre oo looga bartay inay tahay qof aan gamban oo seefteeda ay bannaanka taalo, hadalka Nimco Joker si toos ah maysan ugu jawaabin oo waa ay yeestay, waxayna si toos u abaartay fanaaniinta heesta soo qaaday. Waxay tilmaamtay inaysan hees soo qaadin, balse ay yihiin dad iska hadlay, kaliya muusig la saaray hadalkooda, danta ay kala yihiin ay tahay in la hadal hayo uun. In aad hadal haysaan oo aad qiimaysaan waa sababta loo soo sameeyay hadalka muusiga la saaray, ilaa hees laguma wici karee. Marka reer Turkey gebka dhaha waa iga talo, ayay ku soo gabagabaysay qoraalkeeda Farxiyo Kabayre. Haddaba daawade, heestan dhaliil mu haysaa adiga?